warbaahinta SBC iyo xoohayii hore degmada Buurtile agaasimaha isbitaalka guud ee degmada Buurtile iyo qurbajoog u dhalatay degmada ayaa waxay booqashooyin ku tageen dhismaha wadada dheer ee u dhaxaysa Garowe iyo Galkacyo oo meel fiican marayso iyo deegaanka Gosol oo badanaa ah dhul biyo fadhiiso ah sanadkan ay si weyn biyuhu u fadhiyaan booqasho iyo indheekooda kadib waxaa TV SBC la hadlay xoohayii hore degmada Buurtile Xaafi Cabdirasaaq Axmed wuxuuna ka codsaday wasaaradda deegaanka inay qayb liwaax la ka qaadato ugana faa'iideyso biyaha dadka deegaanka Gosol waad u jeedaan biyaha tirada badan waa biyihii guga oo mar labaad saas deegaanka u buuxsamay biyaha hadii la qabto oo la ilaaliyo oo runtii wasaaradda deegaanka iyo ballanqaadkii madaxweyne ku-xigeenku ay dhawoobaan waxaan dhihi lahaa wax badan baa looga faa'iideysan lahaa waxaan codsanayaa wasaaradda deegaanka inay arrintan ay qayb lixaad la ka qaadato biyaha inta la eg oo runtii 4 kiiloomitir maalin kasta ay fadhiistaan sidii dadka looga faa'iideyn lahaa ballanqaadka meel fiican buu marayaa sida wasaaradda iyo noo sheegeen iyo dawladduba waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inay biyahan noqdaan biyo ay dadka ka faa'iideystaan deegaanka Gosol barnaamijkan oo isahashay Puntland SBC TV-na waa uga mahadcelinaynaa iyo xaawo matooto qurbajoogta nagala joogta geesta kale mar waxaa matooto oo ka mid ah qurbajoogta u dhalatay degmada Buurtile ee gobolka Nugaal ayaa dhankeeda dawladda Puntland ku amaantay waxqabadyada la taaban karo ee ay ka sameysay gudaha Puntland sida dhismaha labada garoon Garowe iyo Boosaaso wadada dheer ee u dhaxaysa Garowe iyo Galkacyo oo dhismaheedu hadda socdo saaka socdaal dheer oo booqashooyin waxqabadka Puntland iyo meelaha wax ka soconayaan ayaan soo booqanay runtii waxa wax aad iyo aad loogu farxaa in ma aragtay tan iyo waqti hadda la xisaabi karo ay waxyaabo isbedel ilaa iyo waqtiga hore Puntland la asaasay ay ka socdeen waxyaabo aad iyo aad u qiimo badan step by step aan dhihi karo qoloba meel soo gaarsiisa balse ay tahay sanadahan dambe in wax aad iyo aad loo tiigsan karo ama lagu faani karo ay ka muuqato sida maaragtay labadii ay laboor oo kale ay laboorkii Boosaaso iyo kii Garowe hadda oo runtii cajiib ay tahay jidka dheer oo lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed u ah oo ilaa iyo koonfur ilaa iyo waqooyi isku xiraya jidkii hore u burburay inaanu maanta soo booqanay gacantana lagu hayo runtii wax aad iyo aad u ballaaran ay ka socdaan cagafyadii iyo shaqadii waad arkayseen masawirada laga qaaday waxaan aad iyo aad halkaan uga mahadcelinayaa TV-ga SBC oo markasta horu kacaya ayatiinka iyo horumarka ummadiisa u shaqeeya ugu dambeyntii agaasimaha isbitaalka guud ee degmada Buurtile Dr. Cabdullaahi Jaamac ayaa dhankiisa Ilaahay uga bariyay madaxweynaha Puntland inuu Alle u fududeeyo shaqada weyn uu hayo bulshadiisa madaxweyne Cabdullaahi waa dadaashay waxaan leenahay inta ku harsanna Ilaahay ku gaarsiiyaan leenahay ilaahayna ha ku guuleeyo inta hadda ma taqaana aan soo marnay ama inta aragnay ama inta aan maqlay oo gaabka yarka ka jiro waxaan Ilaahay ka baryaynaa Ilaahay ma taqaana inuu ku fududeeyo siiba wadada ma taqaana xudunta ah oo ilaa ma ay Garowe ilaa ma ay ma taqaana Galkacyo ah waad madhay waad fiiristay dhibteeda iyo qaxarkeedana waad aragtay Allah ku fududeeyo leenaas Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtile Puntland bilaash ma madhin aad iyo aad barwaaqada daadsan iyo beeyada taalla